waxaan idin raali gelinaa in maalmahan aan ka maqnaa oo waxba idiin soo tabinin mashquul jira awgiis qisada maanta aan idiin wado waxa weeye inta qisadaan soo akhrinay qisadii igu argagax badneed qisadii waxa la yiraahdaa gabadhii waadiga ayaa la yiraahdaa qisadan qisadu waxay ka koobnayd ilaa 4 qaybood hab qoraaleedkeeda laakiin waxaan doonayaa inaan kugu soo tabiyo 2 qaybood oo aan soo duubayo waxaa linka doonayaa qisadan haddii aad ka heshaan inaad like gareysaan si u gaaraan asxaab badan isla markaana si share gareysaan haddii aad ku cusubtay janna waxa laga doonayaa inaad subscribe saarto si aad u hesho qisooyin badan oo aad u macaan badan hadduu alla idmo maatinidiin ku soo dhawaada qaybta koowaad ee qisadii ugu argagax badneed qisada gabadhii waadiga waxaan la joogay saaxiibkay Ayuub maqaaxi dhexdeeda waxaan ka sheekeysanaynay sheekooyin tiro badan oo akhbaar kala duwan leh waxa uu igu yiri yar saaxiibkay ah ayaa ii sheekeeyay waxa uu igu yiri waxaan ka shaqayn jiray korontada mararka qaar waxa la ii diri jiray magaalada banaankeeda maalin ayaan shaqada ka daahay waxa la igu gaaray aadaanka cishaha shaqada ayaan iska joojiyay waa aan soo baxay waxaan soo aaday gurigeyga oo markaa meesha u jiray 10 meel jidka oo xumaa waxaan gaariga u waday si taxaddar ah waxa aan soo maray waadi caan ah oo ay dadku magaalada garanayaan maxaa yeelay waadigu waa la soo aadaa xilliga fasaxa ah oo dalxiis ahaan ayaa loo yimaadaa hase ahaatee xilligan xilli fasax ah ma ahan oo waadigu waa faaruq markii aan waadigii soo galay ayaan hal mar waxaan arkay gabar da'yar oo dhar labisan waa ay hadlaysay oo codkeed ayaan maqlay markii aan indhaha ku dhuftay cabsi daran ayaa i gashay waxaan isiri waa jinni ama waa shaydaan wadnihi ayaa dhuunta ii soo istaagay gaariga ayaan aad u waday markii aan hal meel ka fogaaday waadigii ayaan isla hadlay oo aan isiri bal ka waran haddii ay tahay gabar soo luntay oo caawinaad u baahan nin rag ah ayaa tahay wax walbana waad ka cararaysaa gaariga ayaan gadaal u celiyay wax aan tegi waadigii dhankii gabadha ayaan aaday anigoo aad u cabsanaya wax aan isla hawa ay qarsoomaysaa ama inta ay weynaato ayay kugu noqonaysaa xayawaan dadil ah markii aan u dhawaaday ayaan ku dhahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh gabadha waxa igu tiri wa calaykum salaam soo dhowow adeer see tahay khayr ee maxaa halkan ku joojiyey baan idhi gabadhi waxa igu tiri waan ku nasanayey imise sana jir baa tahay baan ku idhi gabadhi waxa igu tiri 10 sano ayaan jiraa ma wareersan tahay baan idhi gabadhi waxay tiri maya waan garanayay gurigeyga xilligan mugdiga ah waxa meesha ku dhigay baan idhi hadaaytay waan ka cabsaday gabadhi waxay tiri waan ku arkayay adiga oo gaariga xoog u waday sababtu ma aniga haa baan ku idhi waxaan isiri armay bahal kugu noqotaa gabadhi waxay tiri hadda bahal miyaan kula ekahay maya ayna keen soo ful gaariga si aan gurigaaga kuu geeyo gabadhi waxay tiri maya adeer hooyada ima jeclo adiga ayaan ku raacayaa horta bal ina keen hooyo waxba kuma dhahayso waa aan soo baxnay gurigaaga soo ma garanaysid baan idhi gabadhi waxay tiri haa wax yar ayaa ay seexatay iyadoo igu tiri markii magaalada la gaaro itoosi markii magaaladii aan gaarnay ayaan toosiyey gabadhi waxa ay tiri magaaladii waa ay isbedeshay sidii aan uga tegay ma ahan warkeeda ma qiimeenin maxaa yeelay waa cunug yar baan isiri waxa aan marnay waddo kale masjid suuq si ay sheegaysay waa run oo magaalada xoogaa waa ay isbedeshay ugu dambeyntii gurigeedii ayaan gaarnay gabadhi waxay tiri waan kana gurigeenna soo deg baan ku idhi aanu gargaraacne gabadhi waxa ay tiri maya hooyaday ma jeclo adiga le u sheeg in ay gabadhooda bannaanka joogto waa aan soo degay gaarigii igu sug ayaan ku idhi albaabadii ayaan si fiican ugu xiray albaabkii ayaan gargaraacay waxa iga furay wiil yar waxaan ku idhi meeyey aabbaha waxa uu igu yidhi aabbahay waa uu xanuunsan yahay soo ma istaagi karo ee u soo gal waa aan u galay waa sidii wiilka uu ii sheegay odaygu waa uu xanuunsan yahay oo qoyskii ayaa ku hareeraysan markii aan salaamay kadib ayaa uu igu yidhi kuma aqaanay ee kumaa tahay anigaba kuma garanayo ee aniga oo magaalada bannaankeeda marayo ayaan gabadhiinna oo aad waadiga uga soo tagteen arkay waana idin keenay oo bannaanka ayaa ay joogtaa iyada oo ka baqayso hooyadeed inay canaanato markii aan intaas idhi hal mar ayay qoyskii soo wada eegeen indhihiina wada taageen sidii in aan ku idhi bal kulmood ayaa bannaankeeda ku sugayo hooyadii ayaa ooyday aabbihii ayaa ku yidhi ma mar labaad baad samaynaysaa aniga waa aan yaabay maxaa la samaynaya baan qalbiga iska weydiiyey odayga ayaa igu yidhi walaal annaga gabadheenna 4 sano ka hor ayaa ay dhimatay qabrigeedana waadiga ayaa uu ku yaallaa
allah wareer oo aan wareeray kadib ayaan ku idhi aniga ayaa wada gabadhaada. Aabbihii waxa uu yidhi waan dhalay gabarh la yidhaahdo Shamso, hase ahaatee waa ay dhimatay. Waxaan ku idhi ma dhiman, waa ay nooshahay, gaarigayga ayaa ay ku jirtaa. Markaa ayaan soo wada baxnay. Haddii aan gaarigayna mid meeday gabadhii? Gaariga waa faaruq. Waxa aan eegnay gaariga hoostiisa, waxna waan weynay. Tan ayaaba tii hore iiga darnayd. Aawo bustahaygii ayaan ku idhi aniga ayaa hubiyey. Annagii oo dhan waa is wada eegnay, annaga oo yaaban oo hadalba karila. Aabbihii ayaa talo fiican keenay. Waxa uu yidhi aanu aadno xagga waadiga. Runtii talo fiican ayaa ay ahayd. Gaarigii ayaan galnay. Aabbihii dhinacayga ayaa uu fadhiistay, hooyadii iyo walaalana gadaal ayaa ay fadhiisteen. Waadigii ayaan tagnay. Maxaan aragnay? Waxa aanu tagnay dhankii ay ku asneed oo ahayd meel taag ah. Maxaa dhacay? Maxaa ay samaysay? Waxa aan arkay bustahaygii. Waxaan ku idhi waa ka bustihii aan anigu hubiyey. Waa ay huwaneed markii ugu dambaysay. Qabrigeeda ayaan eegnay. Waa xaadir iyada oo fadhisa ayaan u tagnay. Marka ay hooyadii iska oysay, aabbihii ayaa qisadeeda iiga sheekeeyey. Waxa uuna yidhi gabadhayda waa ay nala socotay, halkan ayaan fasax u nimid. Xilligaa waxa ay ahayd 10 sano jir. Bahal ayaa la cararay oo dilay. Waa laga soo dhigay iyada oo meyd ah. Waan dhaqnay oo halkan ayaan ku aasnay. 2 sano kadib ayaa ay u timid qowsaar ari la joogo. Ariga ayaa ay 7 maalmood la joogtay oo ay la raacisay. Markii uu inoo sheegay waa aan rumaysan weynay. Markii uu aad noogu celceliyey waa aan soo raacnay. qabriga ayaa nimid. Waxa uu ahaa sidiisii hore oo aan oga tagnay. Ari raacaas fariin ayaa ay u soo dhiibtay, hase ahaatee waa aan fahmi weynay. Adiga ayaa Ilaahay qadaray in aad noogu soo gudbiso si toos ah. Khayrna Allah kugu abaalmariyo, ayaa uu ku yidhi aabbihii. Qisadaas waxay ahayd qiso aniga aad iyo aad iga cajabgelisay, isla markaana aan rajaynayo idinkana inay idiin noqonayso qiso aad la yaabtaan.